السلام عليكم دمان دوريد ام بي maanta waxaan ku sugannahay International Airport of Djibouti waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Maxamed Mame oo leenahay soo dhawow wadanka waa wadankaagii waxaan ku leenahay dhammaan haddaan nahay shacabkii reer Djibouti kaliya laab waan ku soo dhaweynaynaa ما شاء الله أصحابي أدي بني سلام يا هل كنا كدح عبادة وحوين دورية ام بي وسود وينتي ولا الكي مامي والله إنها يسود وو هابس ريكس مقرتين إن شاء الله شوقة بشكوية تمكيجا يوم مقالة جيبوتي ونشدن طن بيس عليكم ومصطفى إكسلانس وحنا ماتا حقا وجوجنا أيربورك جيبوتي وبالعدي سؤال لقى يا بي فنانين تودن لوكال هرين عرف كي واحد جوجا وهبسن وكان صمد وكان صمت جيبوتي أويلا حق الجوجا يا حق سلوخنا كاركيا وحويا وحن قدرنا هاي تيم شرماك حقا ما كاركينا فنانين تولوا وذبين هاي waxa kaliya hay'adda sugnaaba waa Maxamed Mame iyo soo dhaweyntiisa iyo intii lagu yaqaanay haddaan reer Djibouti nahay waxaan leenahay Maxamed Mame soo dhawow baan leenahay محمد مامي waxaan ka leenahay Maxamed Mame gacmo furan ku soo dhawow anoo ku hadlay fanaaniinta reer Djibouti afkooga de kulay fanaan baa iga horeeyo wuxuu yiri baa uu yiri oo hadalka ma daba oran kare laakiin anoo ku hadlay fanaaniinta reer Djibouti afkooga waxaan ka leenahay Maxamed Mame ku soo dhawow wadankaagi labaad wadankaagi Djibouti waxa lagu yaqaanaa soo dhaweynta iyo soorta fiican waxaan ka leenahay welcome to Djibouti
dalkaygo midan laysdulmino dowladaa tahaye dalkaygo mid nabad lagu dego dayna baa tahaye dalkaygo midamaalo dadka u dabacsan baa tahaye dalkaygo ducaalabto daranyaka beere dalkaygo midan laysdulmino dowladaa tahaye dalkaygo mid nabad lagu dego dayna baa tahaye dalkaygo midamaalo dadka u dabacsan baa tahaye saaxiibnimada iyo walaalnimada السلام عليكم هلا محمد كسو دو dalkaagi maadaama Djibouti ay tahay geeska Afrika hoggaankeedii albaab kasta uu u furan yahay qof kasta oo yimaada inay sharaftii iyo cisigii lagu yaqaanay ay ku soo dhaweyso wadankaagi baa joogtaa soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم أنا هبنا ويا هذا ويا محمد مامي ونامي هذا وياي haddana ay bahdii jib live waxaan ku suganahay airportka Djibouti oo ku soo dhaweynay Maxamed Cumar Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Maxamed Mame Maxamed dhulkaagii hooyaa joogtaa dhulkaagii labaad baa joogtaa waxaan ku leenahay soo dhawow waan ku ag taaganahay farin maxaa u diraysaa dadka inta la ku daawanayaan aad baad mahadsantahay horta dhamaantiin inkastoo iskayr mukhajalahay oo si fiican ay soo dhaweyseen ma sha Allah ilaahay garabkiina ha galo kartida iyo ixtiraamka iyo sharafta aad leedihiin reer Djibouti waa idin qiraya waa idinku ogahay dad nasaba dun wacan wanaagsan oo walaanahay inamiyo gabdhawa garabkiina aan hayno mar walba inankiini baan ahay Djiboutina markii ugu horeysay ma hawligii waan joogo iman jiray aad baad u mahadsantiin kartibaad tusteen sharaf baad mudantiin waxaan kaloon aad ugu sii mahadnaqayaa walaalka Sharmaake iyo tiimka hidiyo dhaqanka quruxda badan leh ee hadda right now meel walba adduunka ka soo gudbiyay waxaan leeyahay idinkana horumar ballaaran bay idin rajeynayaa ilaahay kartida idinka laftarkiina idin sii siyaadiyo meel sare idin rajeynayaa qof kasta meeshu joogo ayaan inamyaha laba ku salaamaya kooxda hidiyo dhaqanka waa showgii bisha 11-kayga saas ku ogaanade